kulankan wacyigelinta ujeedadiisu ahayd sidii loo joojin lahaa tacadiyada ka dhanka haweenka iyo caruurta laguna dhiirigelin lahaa waxbarashada ayaa waxa maalgelinayay hay'adda USAID waxaana fulisay hay'adda Care International. Mashruucan wacyigelinta oo magaciisa la yiraahdo kalkaal ayaa waxa lagu qabtay beerta Nuura ee magaalada Ceergaabo waxaana ka soo qayb galay maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo xildhibaano isuduwaa cadaaladda gobolka Sanaag isuduwaa shaqada iyo arrimaha bulshada xubno ka socda garsoorka gobolka culimaaddin haween iyo dadweyne kale oo tiro badan. ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Xasan Cabdi Weyd oo hay'adda Care u qaabilsan waxbarashada. wax la yiraahdo 16 cisho activism-ka ama waxqabad ay iska kaashadeen wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. waa barnaamij ka soo bilaabma 25 November kuna dhamaada 10 December oo lagu ololeynayo tacadiyada ka dhanaa dumarka iyo caruurta. sidoo kale barnaamijka waxa uu heliyay muhiimadda ay leedahay waxbarashada waliba hablaha gobolkeena Sanaag marka laga hadlayo gobolada kale xagga dugsiyada inta gasha waynu ka hooseena gobolada waxaanu ku boorinayna ama fariintaan u dirayna dadka inay waxbarashada inamada iyo hablaha ay iskuulada u diraan. sidoo kalena waxa hadalka isaga kala dambeeyay culimaaddin xildhibaano xubno ka socda garsoorka iyo mas'uuliyiin kale kuwaasi oo dhamaantood isku raacay in si isku mid ah looga soo horjeedsado tacadiyada haweenka ka dhanka waxa la baro yaana la takoon hadda xaqoodii waa la gafay hadii la yiraahdo wiilkan wax baraya dhaqmay raashikana kari waxa waa cadaalad dar kufsigiina waxaan anigu leeyahay anoo wasaaradda waqaftay arrimaha diinta ka tirsan war dadkan wax kufsanaya halalaay haddii la doonayo wuxuu inay joogsadaan haddii kale way diyaar baanu nahay ka wasaad waxbarashaan anu waxaan leeyahay dadaalka aa gasheen inaad sii kordhisaan oo nugula dadaashaan oo ilmo walba oo noo keentaan ilmaha xitaa u weydaan waxba gabadha xoo weydaan aniga qayb baan ka qaadanaya weyn baan ka qaadanaya mowqifka la isugu meesha oo ka hadlaya dumarka tacadiga dumarka loo geystaa waa run waligeedna waa loo geysanaya raguna waligii duulaan buu ku ahaa dumarka maxay tahay dhan looga soo wada jeesado hana laga hortago haday tahay hay'ad haday tahay xukuumad haday tahay haween waa inaynu dhan uga soo wada jeesanaa haddii geel laga qaato kufsiga iyo haddii ari laga qaato iyo haddii digaag laga qaato midnaba ma kafeynayaan baan ugu leeyahay run ahaantii waana tacadigiis inanta la kufsaday burca joogtay geela laga qaato iyo halkan joogtay ariga laga qaato haddii xitaa digaag laga qaato waa isku mid waayo dhibaatadii loo geystay lama gudin annagu raalli kama yihiin bulsho ahaan reer Sanaag gaar ahaan reer Ceergaabo kubsiga raalli kama yihiin dumarka waxaanu leenahay wixii hore xaal ka qaata wixii dambena madaxaanu ka gureynaa wasalaama laga hadlaa oo si aad looga hadlaa si ay u joogsato oo qofka kubsiga sameeyay waxa weeye intii daamur la mariyo in magaalada lagu soo wareejiyo way oo la tuso cid walba intii daamur oo la yiraahdo gabadhii yareedkii kufsaday waa ka gobol ahaan inaynu ugu dhiidhino u hadallo oo aynu ka wada fadhiisano maxkamadda la yimaado oo odayaasha la doodo oo la yiraahdo sida ma hay ka daadoyo lama doonayo 40 neef ninka kan waxa laga qabto hala xidho hala jillaado hala karbaasho mandheeraha loo gudbiyo waxyaabahaas la inoo ka baahan yahay marka waxaan isku boorinaynaa oo imka xafladeena ku saabsan tahay maanta aynu taaganahay in laga hortago tacadiyada ka dhanka haweenka isla markaana la hirgeliyo oo la dhiirigeliyo waxbarashada waayo waxbarashadu waa muhiim qofkay muhiim u tahay shakhsiyadda qofkay dhistaa intaad ku shaqaysan waxa ka horeysa adeeg ku gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo Saalax Ismaaciil Cabbaas iyo isuduwaa wasaaradda cadaaladda gobolka Sanaag bani soo dhaweynaa caruurta in wax la baro inan iyo gabadhana waa in aad wax loo baro islaantana waa in aad wax loo baro wasaaraddu waxay soo saartay baaq waxay yiraahdeen lama aqbali doono kufsi dambe oo wax laga qaato haweenka oo xaqa ay naga mudan yihiin aan marino baan leeyahay oo ubadkeena noo shaqeyno iyagana la dadaalo waan leeyahay cid kastaba oo ay arintaasi damqayso ama xildhibo waxaanu leenahay waa inaynu ka soo horjeesanaa wixii haweenka tacaddi ku ah haweenkeena tacaddi ku ah inaynu ka soo horjeesano. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar fogaanaraga xorta Star TV magaalada Ceergaabo.